Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa war qoraal ah oo uu kaga jawaabayay qoraalka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qaatacay go'aanka uu madaxweynuhu soo saaray oo ahaa in uu hakiyo awoodihii ra'iisul wasaaraha. Bayaanka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku tilmaamay go'aankii madaxweynaha mid baalmarsan dastuurka ku-meel gaadhka ah ee qaranka, taasi oo uu madaxweynuhu ku hakiyay awoodaha ra'iisul wasaaraha. Haddaba kadib markii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble warbaahinta ka arkay qoraalkaasi, waxa uu sheegay inay tahay mid baalmarsan shuruucda dalka ee uu ugu horeeyo dastuurka ku-meel gaadhka ee Soomaaliya. Warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee uu ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareer marsan dastuurka ku-meel gaadhka ah ee qaranka, wuxuuna si cad uga been abuurtay qodobka 87aad iyo 9aad ee dastuurka ku-meel gaadhka ah oo aan meel lagaga xusin in uu madaxweynuhu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa, ayaa lagu yidhi qoraalka ra'iisul wasaaraha. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo oo war-saxaafadeedkaasi warbaahinta u akhriyay ayaa yidhi: madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah ugu tuntay qodobka 9aad ee dastuurka xarfihiisa A B C D E F G H, kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinteeda, ogolaanshaha iyo fulinta xeerarka maamulka, diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda, dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dowladda, magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dowladda. Waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu jabiyey qodobka 100aad ee uu ra'iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada. Madaxweynuhu waxa uu jabiyey qodobka 103aad ee dastuurka ku-meel gaadhka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra'iisul wasaare cusub, iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in madaxweynuhu uu iska indhatiray qodobka 9aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyo kuna eekayd 8 Febraayo ee sanadkan, isagoo oo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ah ee xukuumadda si uu u abuuro fawdo iyo deganaansho la'aan, ayaa lagu yidhi bayaanka ra'iisul wasaaraha. Haddaba iyada oo laga duulayo sarreynta sharciga, ra'iisul wasaaruhu isagoo oo xiganaya qodobka 4aad farqadiisa 1aad ee dastuurka ku-meel gaadhka oo qeexaysa in xukuumaddu u hoggaansamayso oo keliya go'aamada waafaqsan dastuurka, wuxuu caddaynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah buu yidhi ee ka soo baxday madaxweynaha loona hoggaansamaynin. Waa awoodihii warqaddaasi lagu hakiyey inaan waxba laga soo qaadi doonin, ayuu yidhi ra'iisul wasaaruhu. Carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadaynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda. Madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah, taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17 Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. Nasiib darro, madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada, jabiyeyna heshiiskii la gaaray, waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha, isla markaana uu abuuray khilaaf baahsan, taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiigu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa, kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii. Madaxweynuhu wuxuu bilihii lasoo dhaafay qaadayay tallaabooyin uu ku carqaladaynayo awoodaha dastuuriga ah ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyey ra'iisul wasaaraha ee hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka. Waxa uu sidaas oo kale isku dayay burinta heshiiskii 27 May 2021 ee lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ah ee madaxweynaha 12 Abriil 2021 uu sameeyey. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay si la mid ah xasaradihii uu abuuray madaxweynuhu 25 bishii Abriil ee keentay kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakicii dadweynaha Muqdisho. Warqadda sharci darrada ah ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay in aanu weli ka tanaasulin damiciisii ahaa inuu dalka ku celiyo colaad sokeeye ama si aan sharciga waafaqsanayn ku joogo xafiiska dalka ugu sarreeya.
madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in uu dhimay awoodaha ra-iisul wasaaraha ee faragelinta hay-adaha dowladda. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha ayaa hay-adaha dowladda faray inay gutaan waajibaadkooda shaqo ee uu hore ugu igmaday ra-iisul wasaaruhu. maamul goboleedyadana wuxuu faray inay dardargeliyaan habsami u socodka doorashooyinka si waafaqsan qodobka 99aad 100 iyo 103 ee dastuurka. ra-iisul wasaaruhu wuxuu farayaa dhammaan hay-adaha dowladda in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee uu adeegidda shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka si waafaqsan heshiisyadii 17 Sebtembar 2020 iyo 27 May 2021 iyo 22 Agost 2021 ee uu gaadhay golaha wadatashiga qaranku. ra-iisul wasaaruhu wuxuu farayaa dhammaan guddida doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhamaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyaga oo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka, ayaa lagu yiri qoraalka ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay u fududeeyaan guddiyada doorashooyinka gudashada waajibaadkooda shaqo si loo dhammaystiro doorashooyinka dalka. 4 si waafaqsan qodobka 127 faqradiisa ba c ama ca iyo ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda, dhowraan talinta sharciga iyo hay-adaha dimuqraadiga ah iyo ilaalinta dastuurka, isla markaana ay sii wataan waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka. ra-iisul wasaaruhu waxa uu qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka uu ku bogaadinayaa sida geesinimada iyo nafhurnimada leh ee ay ugu adeegayaan dalkooda. waxuuna u xaqiijinayaa in xukuumaddu ay ka go'an tahay joogtaynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag u ah geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. 6 ra-iisul wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in aan la aqbali karin in miisaaniyadda qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadda dalka, waana in hay-adaha maaliyaddu ay ku taagnaanta iyo hogaansanaanta wareegtadii uu ra-iisul wasaaruhu soo saaray 9kii bishan oo ku salaysnayd isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. ra-iisul wasaaruhu wuxuu xusay in marka la eego qodobka 3 ee dastuurka ku-meelgaadhka ay tahay madaxweynuhu in uu ilaaliyo mabaadi'da asaasiga ah ee kala socnaanta awoodaha hay-adaha dowladda, joojiyaana faragelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale ay u tahay sida uu isugu dayayo inuu u hor istaago cadaalad u helidda kiiska Ikraan Tahliil. ra-iisul wasaaruhu isaga oo ilaalinaya danta guud ee qaranka iyo nidaamka dowladnimada wuxuu ugu nasteexaynayaa madaxweynaha in uu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jebinta heshiisyadii doorashooyinka, carqaladaynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilooni darrada iyo isku dayga sadbursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi. waxa kale oo uu baaq u diray shacab. ra-iisul wasaaruhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay muujiyaan deganaansho, ilaaliyaana nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda in ay dhammaystirto doorashooyinka dalka oo ah wadada keliya ee u furan si aan uga baaqsano dib u noqosho buu yidhi. sidoo kale wuxuu beesha caalamka uga mahad celiyay doorkooda, wuxuuna ugu baaqay beesha caalamka in ay ku gacan siiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo ka hortagga isku day kasta oo lagu carqaladaynayo doorashooyinka, wuxuuna si gaar ah u xasuusinayaa in il gaara lagu hayo shakhsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. ra-iisul wasaaruhu wuxuu ugu dambeyn qoraalkiisa ku ballan qaaday in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay u ballan qaadayso shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay xoogga saarayso dhammaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dowladda si hoggaanka dalka loogula kala wareego si nabadgelyo ah.